وكمل يكي علم البحار كمرايكان كاها نمان كلا قديسا وحكضوا بي مركي دنبه مسلسل تي في oo la yiraahdo innahu alhaq baad heli kartaan isagoo kitaabana waxa soo saartay hay'a al-i'jaz al-ilmi في القرآن والسنة رابط العالم الإسلامي رابط العالم الإسلامي سجال بوك بيلي سجال بوك وكور رمية مسائل كاسي الإعجاز العلمي في القرآن وبوك استاي واحد قارك كور رمية يعني قضايات كان مركي أفري طبعا كان المركو ضد الله صمين يا شيخ الزنداني يا علماء الله صعوته قاروا يا شهادتين مارشال جونسون اللي يرادوا مريكاني waxaan markaan u yeedhnay ayaanu su'aalo weydiinay buu markuu ka jawaabay ayaanu nidhi waxaan quraanka ka war intuu istaagay buu yiri nonsense isagoo la istaagay buu yiri markaasaan nidhi buu fariiso waa buu fariisan waayay buu carooday haddii anaga istaagayna baan ku nidhi buu yiri waan isla taagnay annana taagnidan kugu akhriyayna waxaad nonsense iska leedahay baan ku nidhi buu yiri dabeetana waanu u sharaxnaa akhrinay buu yiri markaasoo aamusa مارشال جونسون كان انت انا لا هادلين بويدي كيث موربان waxaan ku nidhi buu mas'aladan isay kula tahay culimada sayniska buu qaarna waa ahraar oo fikradooda ay hadlaan qaarna wax kale ka baqaaniyo wax kale ay xeerinayaan dadka ahraarta ah oo dhammaan waa aqbali doonaa buu nagu yiri mas'aladiina tan markaasaan ku nidhi buu iyada ahraarta oo maraynaysa mas'alada tan aqbaan muu sharxi karnaa oo taga buu yiri Marshall Johnson waa Johnson kan ka cayeelay nonsense جونسون كما كان uu sharaxnay buu yiri ka waranay qadiyada tan iyo quraanka iyo xadiisku sidoo uu tilmaamay buu yiri markii dambe arintan ay sheegaysaan waxay kula taybaan ku nidho waa saddex midun buu yiri haye saddexda midku xagaad ku haysaa wuxuu yiri buu yiri maxamed inuu mijhar haystay waxaan wax lagu eego microscope inuu agtiisa yaalay waxaan ku nidhi buu yiri xadaaradu waa wada socotaa waqtigaasi carabtu waxay ahayd dad aan waxba haysanin quraankan laftiisa markay qorayeen wax kale ay ku qoraan way waayeen lafa harag dushii baa lagu qortay buu yiri ninka quraankiisii ugu sareeyay oo haystay baa harag dushii ku qortay miyaa microscope haystay baan ku nidhi buu yiri ilaanu maadadii dhameeyay la ilaalinayay baa wixii adawaadkii lagu ilaaliyo lagu qoray waxay noqotay baan nidhi buu yiri harag iyo dhagax iyo lafiyo wax la nooca dushii baa lagu qoray miyay suurtagal mid kale baan ku nidhi buu technology-gu wada socda ummadda telescope samayn karta ama microscope samaysan karta fiicani xagan kalena de technology-da gaadhana waa samayn karta waxna waa samayn karta technology waa wada socda suurtagal ma habaan ku nidhi taa wuxuu sheegay baan filayaa kale dadkii ka horeeyay caynka hadda miyad ku haysaa baan ku nidhi buu taariikhdii hore iyo wax sheegaya nooca kan iyana lama hayo كصدحات شيء سواء محيو كصدحات وحويان بيقولوا إنه وحن سبضة وقيمي إنه وحي هي سكلانو عدا يوم قرن كرا إنه وحي هي أو نبي الله وحي دويه تنكور رميي أو محاضرات كجامعات كقلي تي في كندو كقلي مالك يسود أيه وريه وحكيوري وأنا نين بأكرسنا كساكرة مسيحية كي وريها ربي إنه ملا دكات كجوا وحكوا عليه ويمكن ما واحد رمسته محمدين النبي هي أي دور قول كيت مر لقوا عليه كيت مر مركي إنما وحكوا لي نبي جماعها وحي محمد كسود دقيقة وحي عيسى كسود دقيقة أنا إلى هذا ما القرى كوضعي ماته أنا إلى هذا ما القرى كوضعي وحي يعني لقادن كرواية وين وما هبوا تلمامي إحنا وجدنا مسائل كان تلمامي إنه والإعجاز العلمي في القرآن ما كانوا لنا هاي وحلقة يابا إعجاز العلمي أما إعجاز كي هراء علماء أنت بدن كور رمي شرتي مسألة بيانية لغوية بها كان ما أنت وحلقة يابا عرفت لفتي دبيراني قرنين يعني عرفت لفتي هذا اللغة دي كلهم طيب جمت يدا دا قبل عربيدون وقرآن وكسر رأيه أما أدب عربيدون وكسر رأيه أنا قرتان دايه عرفت لفته دي ودبكوا هينا كرسوعي كران ويا وحلو ما يذوقي أدبي جاها وحلو ما ردن كي أدب كي اللغة اللي يقاني قرآن كان وحنا نروح الله تعالى قال بشر كدمانتي ما دام بشر كدمانتي الله تعالى قال
وين جرى بشر كيسي معجزة ولا كل مكره أما وفهم كره. ولذلك إلهي سبحانه وتعالى القرآن كوحكوا ليه قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به كورما با إلهي إليه qoladii inaan gaala hadduu qur-aanku ilaahay xaggiisa ka yimi idinaa ka gaalowdeen man adallu miman huwa fii shiqaaqin baciid yaa ka baadinimo badan ninka yani meel fog ku sugan. ilaahay aayadda ku xigta wuxuu leeyahay sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fi anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq awalam yakfi birabbika annahu calaa kulli shayin shahiid. إلهي يدك وحكته وحوليه سنريهم آياتنا آيات كيغا وحنو كتصدون نبا إلهي إليه سبحانه وتعالى في الآفاق وفي أنفسهم في الآفاق هوريز آيات كيغا وحنو كتصبا إلهي إليه سبحانه وتعالى هريرها عرق إيا نلك إيا آفاق دا أيانو كتصدون إيا وفي أنفسهم با إلهي إليه سبحانه وتعالى إيا نفتو دا أيانو كتصدون حتى يتبين لهم إلى أنت يوقع عضان السبا إلهي إليه أنه الحق إنه القرآن كنبي هي أنت أي كعضان يسو وكتسينا با إلهي إليه سبحانه وتعالى إلهي وحلي سنريد وكتسينا مسائل كان علمي كان كور رمية واحد شرا واحد علماء وكلا صاران ويدادنا تفسير العلمي هي واحد كتل المامان الإعجاز العلمي في القرآن والسنة التفسير العلمي وإشارات القرآن كي وحيابه وتلمامية بعض النظريات العلمية اللي فسره تاسي خطأنا وين غكرتها صوابنا وين غكرتها لكن مسألة أنا كور رمينا ما هطها مسألة أنا وحويان ووح تحت التجربة قال ووح مشاهدة قال ووح أركتين نغضي مثلا المهية علاش السيدو وقرة واجي هراء صاينسي هندي دونيدو واحد رمي السنايين بني آدم يكون إنه كأبور ما حيت كالضمرك مسألة فوكس كعلمي كو قرن بيهي إنه حيت كالضمرك كأبور ما إلى أي قرني تضبي تبناد لقسيو قاري ساسال الرميسنا إيضا علماء دي مسلمين ابن حجر يا ابن القيم يبقى الردين يا مسا حديثك والرميسي النبي وتلمام يوحى قفك بني آدم كالا قابورة أما آيات القرآن مركي شرح أيام بيوحي قري جرين وقلط waxay طبيعيين الرميسيين يعني حيد وحكا أبو رمانة إلهي وحكوت المامية من ماء إن لقى أبو ري مهينة أما من ماء دافق أما يعني نصوص القرآن كي حديث واحد الماميسي وقت قاسي كنت الماميين علماء المسلمين تاني فكرة دا ساينس كي قلدان تاهي محيد لشانيين وحيد لشانيين نصوص القرآن كي حديث ميكروسكوب مركوب بالعمي ميكروسكوب يرو قديم وقبوبي baa jiro barigi hore la isticmaali jiray oo halkan quraarada yar ku samaysanta ishana halkan la saaro waxa la eegayana halkan la dhigo oo wax yar 10 times meelahaas wax weyneeya markii koowaad ay xooyinka manawiga arki karaan waxay rumaysteen in qofka oo iska kuusani jiro manida dadka الرحم كوبايد هذا هو ماله كوكراو قف دبتنا صورنا هوري هذا دركته اسبام كصوره يا مدح يا ربورنا اسبامك waxa ku jira qof yaro fadhiyo adimadiya madaxiyo wixii oo dhan yani waa fikrad ay takhayuleen microscope laga ma arag laakiin markii la ogaaday xayawaan manawi inuu ku jiro manida raga fikraday saanisahanadu takhayuleen waxay ahayd in qofka iska kuusan uu meesha dhex fadhiyo uurka hooyadu waa beerun bay yiraahdeen ilmahan uu ku weynaaday ilaa iyo intuu ilma dhasha وقت الدنبه هدنا waxay ogaadeen buyayda ama hooyaduna inay baad leedahay hadana fikrad kale qaateen oo ah ninku waa uu qarxiya ama waa kobciya uune qofka ku saniinu beedka ku dhex jiro hadana buwaagtooda kale waxaad ku arkaysaa xabada beeda oo qofka ku sani u dhex yaalo waqti kasta oo aqoonta la leeyay waxaan wax lagu eegayo waxaan soo koreen قائق بدن لوغاد قرآن كسي وقت قاسو حكا ورميا إن إنسانكو من مني يمنى من ذكر وأنثى إن الله كأبوره
lab iyo dhadiga isu tagooda labadaba in alla ka abuuro in ay markaasi ka dhalato nutfatin amshaaj sa ilaahay qur-aanku tilmaamaya candhuuf isku qasan oo beedkii hooyada iyo isbaamkii odayga iskaga qasan dabeetana qur-aanku wuxuu tilmaamaya in atwaar inaan mar qura qofka bini aadamka la wada abuurin laakiin tawr bacda tawr atwaar in loo abuuray markaasuu qur-aanku wuxuu kaloo tilmaamayaa tawr kasta ama stage kasta magac buu u bixiyey even scientifically maanta stageska bini aadamku maraa magac kuma leh scientifically embryologyga marka la daraasaynayo waxaa la yidhahaa usbuuca koowaad usbuuca labaad usbuuca afraadna lagu daraaseeyaa laakiin magac ma leh qur-aanku magacyuu u bixiyey nutfa calaqa mudqa fakasawna alcidaama laxma waxa loo bixiyey maxay magacyo asmaa walidalik ba axad alculamaa arrintan loo soo bandhigay waa wuxuu lahaa icjaaska qur-aankan uu yaabka leeyaba waxa weeyaan buu yidhi scientifically waxaanu anagu namiska magacyada u weynay ayaaba annagu waxaan u haysanaa wiiga 7aad wiiga 12aad wiiga 13aad wiigag baan u haynaa laakiin magacyo uma hayno bidabdina magac kasta oo qur-aanku tilmaamaya wiigagaasi waa sida uu eeg yahay maruu nutfatin amshaaj yahay maruu calaqa yahay calaqadu waa lulubadana waa la odhan karaa shayga meesha sudhana waa la odhan karaa waxa yari baadka yar iyo nutfatin amshaajgu riximka ayay meel dalooshata dabeetana si lulubada laadsantaa mucallaqana way ku tay waana xinjir dhiigoo kale u egtay mudqadu waa shay mar la calaaliyo in typically taajaan miyaa la yidhahdaa nin philippine oo dhakhtaro nimanka waaweyn ee la kulmeen ka mid ah ayaa wuxuu yidhi waxaan aad uga yaabanahay mudqadaa sheegaysa xabad xanjaab uu qabto deetana uu calaaliyey uu soo saaray wuxuu yidhi typically saasuu eg yahay buu yidhi xanjada marka ilaga lagu qabto ay godgodonka yeelato si uu eg yahay exactly buu leeyahay xataa structure-ku qaabku u foomgaraysay waa kaas buu leeyahay magac ka fiican oo loo bixin kara buu yidhi wax mar la calaaliyey inuu yahay ma jirta buu tilmaamaya ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inuu mudqaye waxaa ilaahay tilmaamayaa in dabeetana lafa la abuuro dabeetana hilib la huuyo dabeetana sida axaadiista iyo nusuusta qur-aanka ku soo aroortay anugu qadaayaadkan ma rabo inaan midhmidh uga waranno insha allah qaar ka mid ah waan hay-adaasi waxyaabahay baxtidayaaba cajaladii 29 aanu sala kaga hadalay inay ka heli kartaan caddaynta risaalada nebi maxamed mawduuc ahaa oo 2 saacadooda inaan masaa'ilkan qayb badan oo ka mid ah ku soo bandhignay ciidaaf Soomaali doonaysa ciidii af Carabi ama Ingiriisi doonaysana webka hadday gasho si fiican bay uga helaysaa kutubta aan sheegayo majaana kuwa Sheekh Zandani iyagoo bilaashad ka helaysa webka aad soo naqli kartaa masaladani waxay sheegaysaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala sanurihim wa tusi wana la tusiyay hadda markii microscope-kaasi la helay ayaa waxa la ogaaday wadada uu maro ilmuhu iyo koritaankiisa iyo sidoo uu koro ilaa iyo exactly uu ka yahay sidii quraanku uu sheegayay qura aayaadkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa anfaqi anfuskaba ka tusinayo وحلنا هو معجزة علمية في القرآن إلهي القرآن كوحكولي وقل الحمد لله سيريه فتعرفونها إلهي وحلي وقل الحمد لله إلهي بما هذه السقناطي سيريكم آياته السين للاستقبال سيريكم آياتي سيمان دنباء الله إذن تصين دون آيات كيس فتعرفونها markaas ay garan doontaan baa la leeyahay subhanahu wa ta'ala marna waa war marna waa aragti mar waa war nusuus quraan iyo ahadiisa sida wax marna waa aragti wixii baad arkaysaa insha lagu arkaya ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay aayaadkiisa uu idin tusi doona markuu idin tusana fa ta'rifunaha alfa'u litartib wa ta'qib iraada siin baa lagu isticmaalay ama i'tiraafka فأبا لغو استعماله سنريكم آياتي سيريكم آياتي إلهي وإذن تصندون آيات كيس لكن مركو إذن تصيا فتعرفونها
markaasay idin garan baa la leeyahay subxaana wa tacaala. waxaan leenahay mawduuca kani waa mawduuc markaasi culammadu ay wax badan ka soo bandhigtay. waana mawduucaan leenahay ilaahay mar hadduu leeyay qul anzalahu aladii yaclamu sira fi samaawaati walard. maanta culammada ugu waaweynee fannigan kama warranta waxaa ka mid ah doctoorkan ugu caansan geologiga waxay yidhaahdaan ninka afraad ee geologiga buu ahaan jiray siddeetanaadkii iminka dee waaba laga yaabaa inuu sii dhaafay zaghluul inajaar. waxaa ka mid ah sheekh zandani, waxaa ka mid ah culamo badan oo maanta muslimiin oo fanniga kan takhasusaad ka dhigatay oo soo bandhigaysa مثلا مسائلك عجبت له إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكك ورمياه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. إلهي سبحانه وتعالى آيات سي قرآنك وحتى الماما يا إلهي إنه بضها يسكو دره واي كل مان والله يسكو ولاقه هدنا قرآنك وحو شيغيا إن برزخ ودحايو وانا يسكو در سمينين. هدنا قرآنك وحو شيغيا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. لؤلؤ يا مرجان كنا إن لغا صوبحو. علماء آيات كاب واجه هره markay fasirayaan بعض الاشكالات bay kala kulmi jireen. اشكالات kay kala kulmi jireen waxa kamida see loo fasirayaa bay البحرين يلتقيان. مرج المروج في اللغة وامحي الاختلاط فهم في أمر مريج أي مختلط واختلاط. مرج البحرين إلهي وحسكو ولا قبال لي لبضي بضوط يقول ولبا محي يلتقيان هدنا وحل لي بينهما برزخ باود حيو لا اسكو واحد قد بيان برزخ باود حيو اسكو واحد والله اسكو ولاقي هدنا برزخ باود حيه oo isku ma xad gudbayaan. markaas hadana waxa la yiri markaas ay culimada badhoodhan jireen mala waa almaa alcadb iyo almaa almaalih oo wabiyada iyo kuwa kan oo kan meesha yar iska galaan. hadana waxa la yiri yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan. lu'lu' iyo marjanka mid ka midana cilmiyan waxa loo geeyay biyaha dhanaan mooyeen kuwa kale laga helin wal biyana diraya bay dhahdaan hadaynu ana waa biyo macaan iyo biyo lu'lu' wal marjan. qarnigii labaatanaad lixdameeyadiisii waa dhaweedo ah ayay waxay isku dayeen inay caddayn karaan biyaha in barzakh u dhaxeeyo oo baduhu inay bada kala nooca yihiin dushun bay badka wadayeen inay isku nooc ahayn nooc ku ahayn marka laga eego kasaafada density-ga waxaana isku nooc ka ahayn xaraaradda kuleylka waxaana isku nooc ka ahayn muluuxada dhanaanka waxaana isku nooc ka wax walba ku kala gedisan badaha wax walba ku kala gedisan barzakh baa u dhaxeeya. badaha waxa u dhaxeeya baleeyeen biyo labada dhinac midnaba aan la nooc ahayn oo laago u dhaxeeya. mawjadu miyaanay jiidhaynino markay mawjadu xagga ka soo dhacdo de intan yar intay qaato miyaanay xag u dareemaya laagan yar kolba dhinacaasun buu la soconaya dhanka mawjadu socoto luuqaasun baa u dhaxaynaya isku darsami maayaan. badda kasaafadeedii iyo dhanaankeedii iyo macaankeedii iyo kuwa waxeedii wadata iyo taa kale waxeedii wadata iskuma darsamayaan. intaa biyo u dhaxaysa luuqa dhanun bay ula guurguurayeen laakiin meel fadaadoobaysa ma jirto biyuhu ka talaabayaan. tan say u qiyaasaan bay waagii dambe waxay soo kaxaysteen markab baabul mandabka agtiisa bay keeneen exactly meeshii bay istaageen dabeetana biyaha koob marka dhinaca laga daro markabka iyo marka dhinaca kale markabka laga daro waa laba biyo oo kala nooc ah. hal markab oo meel taagan oo badda dhinaca marka laga soo darsaday marka dhinaca laga soo darsado waa laba badood oo kala nooc ah. waa bad dhanaanka kulaylka muluuxada density-ga everything uu ka gedisan yahay. labadaba lu'lu' iyo marjaanka waa laga saaraya. labadaba yani wuxuu quraanku ka waramayay waqtiga
bal waxyaabaha cajabta ee culimada qaarkood tilmaamaan waxa ka mid ah xayawaanaadka dhan qura laazima dhanka kale xataa uma gudbaan dhankaasna xayawaan nooc gaar ah ku dhaqan oo muluuxada iyo densitiga iyo xaraarada gaarka la dhaqma xaggaana nooc gaar ah ku dhaqan waxa ay nusuustani tilmaamaan nabi maxamed waqtigiisa salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaan lama ogey quraanku wuxuu ka warramayaa wax tiro badan kownkan iyo siduu soo bilaabmay iyo dukhaankii iyo wixii uu ka samaysnaa waxa uu ka warramayaa buuraha kan iyo nooca ay u samaysan yihiin iyo in buurtu ay wata tahay oo in saroo taagan iyo in hoosoo taagan ay tahay inay buurtu rawaasi tahay oo dhulka kan inaanu gilgilanin yani buurtu ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa in buuraha sababta loo taageeba ay tahay maxay la tamida bikum inaanu dhulku inala dheeldheelin haddii buurta lala yahay bay leeyihiin maxaa dhici lahaa bere hore dhulku bayna daadin lahaa yani dhulka marka hoos loo kaco xagga hoose waa cajiin waa kulayl marka qasharadan sare meelaha ay ugu koobantahay waa 70 kilomitir meelaha wax yar bay ka dheertay marka 70 kilomitir meelaha la dhaafo cajiin hoose oo kulul oo islaba rogaya loo tagaya buurtan sare in ka dheer bay hoos jirtaa bay leeyihiin haddii aanay inta ay hoos jirtaa jirin gudahan cajiinka dushani way gilgilmi lahayd wuxuu noqon lahaa qolof khali wareegta khali wareegan waxa ka ilaalinaya watadiyada tan dhan walba kaga soo jira ayaa wuxuu ka ilaalinayaa maxay inay khali wareegto waa masaa'il dhawaanuun la ogaaday yani waxaynu odhan karnaa maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 waa ka warrami karnaa waxa maanta kutub ay culimadu ku qoreen marka laga tilmaamo ama basharka ha ahaado maqalkiisa ha ahaado asxaabul kaafka quraanka ilaahay kaga warramaya ha ahaado xidigahan iyo cirkan iyo dhulkan iyo say u sameeyeen ha ahaado inay kala fuqeen iyo bariga hore inay isku dhagsanaayeen ha ahaato biyaha iyo siday dhulka ugu jiraan ha ahaato roobka iyo siduu u soo da'o iyo daruuraha iyo noocyadka kala leeyihiin yani quraanku wuxuu noocyadkiisa iyo qaabka roobku u kala deeyo kala nooca daruurta rukaamiga iyo tagayru rukaamiga daruuraha barafka wata iyo kuwan barafka wadan hilaaca kuwa leh iyo kuwan hilaaca wadan intaba quraanku uu ka warramaya laakiin bini aadamku goor ma ogaaday wuxuu ogaaday waagii la soo saaray transistorska يعني bahaladan qoladan electronicsku transistorska yarara isticmaalaan transistorskana waxyaabaha faa'iideeyeen marka in raadaradan waaweyn la samayn karo raadaradan waaweyn markii la samayn karay waxa suurta gashay waxa cirka maraya ama hawadan sare maraya in maxay la arki karo more practical in la daawan karo bal waxan sidoo foom garoobayo ama saddeed duulimaadkan iyo diyaaradahan xagga sare hawada sare qabanaya waxay yiraahdaan dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyay ilaa diyaaradii dagaalka labaad duniduna halkan dhow bay carari jirtay meel fog may tagi jirin halkan bay ka bararaflay jirtay intii ka dambeeyay ayaa transistorskan markii la helay waxa kan baa waxa suurtoobay in la samayn karo raadaradan waaweyn waxa suurtoobay diyaaradahan dheereeya waxa kan inay soo kacaan waxaasi waxay abuureen in la arki karo daruurtan iyo siday u samaysato ilaa ay ka noqotay nusuusta quraanka siday u sheegaysay nusuusta quraanka siday u sifaynayso ولذلك waxaynu oran karnaa مسألة هو المعجزة العلمية في القرآن أو الإعجاز العلمي في القرآن وفن رنتي عصري كان أدلو دراسي ودراسات كيسو الفاظ حديث كمركا دركته أما الفاظ القرآن لفظ بعض كسان عالمي هو علم دان كغا ورميه شلان أخرنا لفظ الجنابة جنابة محل عالم مسلمة ku takhasusay bi'ada iyo talawudkeeda oo ka waramaya qofku markuu jinaaboobo waxa ku dhaca oo inay meedhashadu laab tahay hadii kale inaan nadaafadaas iimanaynin ka waramaya yani taxta ay shacra nabigu soo tilmaamin tin kasta hoostiisa janaaba ku jirta in qofku meel kasta biyaha gaarsiyo ka meedho
scientifically buu waxa cadaynayaa shacro kasta hoosteeda in janaaba joogto يعني marka aad tatabuucdo waxyaabahan daraasaadkan cilmiga xadiidka la tilmaamayo maalin dhaweyd baan yana waxaan akhrinayay basarka iyo jinsiga cilaaqada ka dhaxaysa iyo qadul basarku inta uu faa'iideeyo ama se daawashada waxaan sexiska la daawadaa inta ay wax qaribto ka waramayeen in caalimo muslim idan nusuusta quraanka marka aad eegtay nusuusta xadiista nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayka ka sugnaatay waxaad arkaysaa aad u tiro badan oo runtii aan oran karo waa adillo kordhinaysa iimaanka illa iimaanku yaziid wa yanqus iimaanku waa daciifa waanu koraa wuu koraya bil adilla buu ku koraya bitaaca labadaba bil adilla wuu ku koraa masalaad hal daliil haysatay dad boqol daliil hesho sugnaanshiyaheedu kaaga sii badnaanaya sida ay markii hore kugu ahay idan bil adilla ilaahi subhanahu wa ta'ala ya diintiisa waxa daliil ah makhluuqaadka Allah abuuro dhan daraasadooda ay makhluuq la daraaseeyaa لا ودليل كتوسينيا محي وحدانية الله سبحانه وتعالى إلهي كلمة إذن عقيدة قفكو الراس خيسا ويسي بطاعنا وكل راس خيسا وحنجي علينا نسك الصوكوضة وحن لنا هيون مسألة التانية ومسألة رنتي دراسية بحثي بدن وباهن لكن أين كوكو بينو لأن هي مرنبا صورة قل ماها إنه إسخلافان علمية وحقيقة وأنا هين ثيورية نظرياتية وحلا فيلية إيوه كتابك القرآن كاية سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني وحن بيكون أنت هذا دركتي وسون سو خلافسن أنت وقبضا لا أما نظرية ساينس كمان صحين أما هذا صدر هذا تفسير سان صحين أما سيقول أنت بشر كان ولي ماشي قارن مثلا المهم لا بيد يكون نقول يوم حاسبة ساينس كين بدن ودي كل ما حبل الشيء يشري بريه هراء سحر هذا مر بالورن شري هذا وحاسم يسوى مركز أنت حاسم يسوى هذا سلام هذا وتكتئ هنا ما يدليسه وأنا قومه بشر كسود ودي ولا سودي هذا إسلام توحيا وحن عنطاء الماء دليسه هذا نكو وحيا وحن عناء المور دليا ولا ودي وهي سو قاعدين حد مركي دمباي هذان بس إسلام تشقى قبله كرم سو مسكيد وأجس شقى قبله وننكا مما إن دافق ننكا بذكر كي ونصوبة كي مادة ننكا أوكلي يا أجس أنواي دبتنا لبضتان أحد آيات القرآن ويشيغيان ننكا كان يعني من مني يمنى إنه إلهي كابو رمحي الذكر والأنثى لكن حديث النبي قال يعني هوين كما قالوا هدي علو أما السبق السمايان إنه أنثى نقنيه نين كما قالوا هدي علو أما السبق السمايان إنه محي ذكر نقنيه مسألة ساينس كهرو فهم كرواي بيهان كون هدي كور نقدان يكون هدي كور نقدان ورق سيواي قبل نينك سيدا بيدا قبل رأيك سجسون بيسيدا لا فرق قبل شقكم عليه وان نكون هدي أجس كيسو لكل ما يدي واي كيسو لكل ما كرمصام كان نكون مادام ويسقوا أصليا أنو قفك بني آدم كي ككوبيني واللحية فرطن كرمصام هل أنو قفك بني آدم ككشرا يوم بعد صدح يلا باتن وأنو قطرنته unu gatarantee gabadhu waa 320 unu gatarantee ninkuna waa 320 labada 320aad ba markay isu tagaan waxay noqdaan maxay 46 unu garaga ee taranta ayaa markaa wuxuu isugu jiraa mid 320 dhadiga iyo mid 320 laba haweeneyda keedu waa 3 laakiin 320 ka dhadiga haweeneydu haday 320 ki dhadiga ninka la kulantana dhadig buu noqdaa haday 320 ki laba ninka la kulantana nin buu noqdaa saadaradeed bay dhahdeen gabadhu markasta dhadigun baa ka soo socda saadaradeed ma shaqaba kuma leh dhawaan waqti aad u dhow ayaa waxa la ogaaday mas'alad dambe oo madaxeeda ma joog rogtay waxa la ogaaday beedka haweenku dawladda inuu electrified noqdo dabeetana inuu ama positive noqon karo ama negative noqon karo ama neutral noqon karo
hadduu positive noqdo iyo hadduu negative noqdo iyo hadduu neutral noqdo waa saddex qadiyadood oo kala nooca waxay kaloo ogaadeen manida ninku spermska agaska iyo kuwa waayiga inay qaarna positive islaanta beedkeedoo negative ah xaalad uu joogo haddii maxaa aqbali karaa hadduu negative matalan yahay negative iyo positive unbay soo jiitaa hadduu ka kalena negative yahay maxaa dhacaya weeraysa idan islaanta beedkeedoo negative hadduu ninka labkaa kiisa labuu negative yahay maxaa dhacaya weeraysa chance male uu ku laboobo ilma dhalanaya waa inuu noqdaa uun kan kale ee positive-ka inuu la kulmo hadduu cagsi maxaa dhacaya kii positive-ka bay eraysaa dee soo maaha two positive ismiye kulmaan magnetismka markaa dhigan jirteen muxuu ahaan jiray wixii isu eegina waa kala yaacaan wixii kala gadisanina waa isu soo jiitaan soo ma ahayn waxaynu idhi islaanta beedkeedu wuu isbedeli karaa wuxuu noqon karaa positive wuxuu noqon karaa negative wuxuu noqon karaa neutral saddexdaba wuu noqon karaa labka iyo dhadigan uu odaygu sidaana midna waa positive midna waa negative fransiska inuu ka negativekii la kulmo kan waxay ku xidhantahay inaanu kani ahayn isna negative hadduu negative noqdo waa maxay rebellion baa dhacaya markaa waxay sawiraan markaa maridii ninka oo matalan intay kani negative noqotay kuwiisii negative-ka ahay dib u soo yaacayaan inay baadka qabtaan xaggiisa daayay kuwii positive-ka qura ay ku sii socdaan idan janiskii labnimadu uu lumaya cagsiga janiskii dhadignimadu uu lumaya markay neutralka tahayna labadaba waa aqbalayaa bay yidhahdaan two different charges bay wadataa labadaba soo jiidan hadda waqti aad u dhow maaha waqti fogba scientifically waqti aad u dhow oo researchskeedii socdaan bay waxay ogaadeen inuu dakhli ku leeyahay haweentu xaaladda ay ku sugantahay bale waxay yidhahdaan 70 to 80 days sanadkii ayay negative tahay 70 to 80 days sanadkiina waa positive inta kalena bay yidhahdaan waa xataa maalmihii bay kuwa yihiin 70gaasi xagee ku dhacayaan waa masale kale xagee ku dhacayaan waa masale kale laakiin waxay leeyihiin 70 to 80 days ay negative days ayaa chanceska ugu badan uu yahay inuu noqdo ilmuhu lab 70 to 80 daysna chanceska ugu badan ilmuhu wuxuu noqonayaa maxay dhadig inta kalena waa chances isleeg bay leeyihiin dhadig iyo labku noqonayo waxyaabo kale badan oo xukuumana waa jiraan عموما ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا waxay leenahay saynisku koris buu ku jiraa koris ayuu ku jiraa maalin walba shalay waxaan la ogeyn baa maxay maanta la soo ogaanaya laakiin qaacidada rasmiga waxay tahay wax kasta oo taxta almushaahada yimaado intii ugu dambaysay la arkaa inaanu khilaafi karin nusuusta daahirkeeda caamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey qur-aanka iyo waxyigu qur-aanka iyo sunnada nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi sugaysa waxaan kusoo koobaya markaa mawduuca kani wuxuun baan isku dayay cumuumiyaadkiisa inaan sharxo ama juziyaadkiisa iyo amhiladiisa badan iyo hadda in mawduuc gaara laga warramo waayo mawduucul janiin oo qura laga yaabi lahaa 2 saacadood 3 saacadood inuu qaadanayo inaynu isku dayno nusuusta soo aroortay inaynu soo ururino qoladan kale waxay sheegeen inaynu soo ururino sharaxno waxaa laga yaabaa roobka iyo siduu u da'o qura nusuusta quraan iyo xadiis ku soo aroortay inaan soo ururino scientific proofka soo aroorayna inaan soo ururino isla muxaadaro waa yani ay mas'ala laga warramo waxa laga yaabaa cilmiyan hadii la israa uga warramayna u baahan tahay maxay saacad laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo inuu maanta dad badan oo culimo oo waaweyn oo faniyada tan khabiir